magaalada Yavla ee dalkaasi Sweden ayaa wiil 13 jir ah waxa uu rasaas ku dhaawacay ilaa 6 qofood kuwa oo la dhigay isbitaalka magaalada Yavla ee wadankaasi Sweden. 6 qofood ee la dhaawacay ayaa isugu jira rag iyo dumar oo qaarkood ay ka yar yihiin da'da 18 sano, waxaana lagu soo waramayaa in booliiska markii lagu soo wargeliyay ay goobta si degdeg ah ku gaareen. sidoo kalena wiilkan 13 jirka ah ee lagu tuhmayo in uu weerarkan geystay bisna dhaawacay 6 qofood ee isbitaalka la dhigay ayaa lagu soo waramayaa in ay booliisku soo xireen oo ay hadda su'aalo weydiinayaan. wasiirka cadaaladda dalka Sweden Josefina ayaa ku waramayo in ay tahay arrintan wax aad looga naxo oo looga murugoodo, iyadoo uu sheegay in ay arrinta taagan tahay wiil dhalinyaro ah oo da'yar ah oo 13 jir ah haddana rasaas ku dhaawacay ilaa 6 qofood ka oo lagu soo oogay isaga oo da'diisu ay tahay 13 jir inuu isku dayay in uu dilo 6 qofood, waana dacwad halis ah oo xanuunkeeda leh. dadka la dhaawacay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in 4 ka mid ah ee ilaa iyo hadda isbitaalka ku jiraan oo lagu dabiibayo, halka 2 ka mid ah markii ay heleen gargaarkii degdega ah iyo daryeelkii caafimaad ay guryahooda aadeen. dhacdadan ayaa ka dhacday magaalada Yavla ee wadankaasi Sweden, waxayna boolisku sheegeen in ay ilaa iyo hadda wadaan waraysiga ay la yeelanayaan wiilkan 13 jirka ah, waxayna intaa ku dareen in dadka dhaawacmay 6dooduba ay xaalad halis ah ku jireen, iyagoo xaqiijiyay in 2 ka mid ah markii la daaweeyay ay guryahooda aadeen, halka 4 kalena ilaa iyo hadda lagu dabiibayo isbitaalka. arrintan ayaa la yaab iyo amakaag waxa ay ku noqotay dad badan marka ay dhacday in wiil 13 jir ah uu inta hub soo qaato uu rasaas ku furo dad ku sugnaa goob, halkaasna uu ku dhaawaco dad badan oo laga yaabay qaarkood in ay u dhintaan rasaasta uu ku furay. arrintan caruurta 13 jirada ayaa ku sii kordhaysa wadamada Scandinavian-ka, waxaana xusid iyo xasuusin mudan in ay Norway sidoo kale u soo xirtay 2 wiil oo 13 jir ah qarax ka dhacay 7 ka hor magaalada Oslo ee caasimadda wadanka Norway. halka wararka kuwooda ugu doorkaroon ay idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdullaahi Shiine.